Lionel Messi waxa gacanta uu ku dhigay markii lixaad xidiga ugu wanaagsan dunida iyadoona dhanka kale la soo sheegayo in xidigaasi halkaasi uusan ku istaagin ee uu u gudbay in uu gacanta ku dhigo bilad kale oo qaali ah oo laga bixiyo horyaalka Spain. xidiga Lionel Messi ayaa ku guuleystay abaalmarin kale oo qaali ah iyadoona ay tahay mid taageerayaashiisa si weyn ay u hadalhayaan dunida inteeda kalena isha si gaar ah loogu hayay saacadihii ugu dambeeyay. xidiga reer Argentina ayaa waxa uu noqday taariikhda xidiga ugu goolasha badan horyaalka La Liga isagoo dhaliyay 428 gool isagoo sidaas ku noqday gool dhaliyaha taariikhiga ah ee horyaalka La Liga. xafladda lagu qabtay halkaasi isla markaana lagu shaacinayay in biladaasi gacanta loo geliyay ayaa waxa ku sugnaa dad aad u fara badan waxaana uu ka jeediyay hadal kooban isagoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in abaalmarintan uu mutaysto wuxuuna cadeeyay in dhibaato fara badan uu soo maray sidii gacanta ugu dhigi lahaa bilad noocan oo kala waa biladii labaad oo saacado gudahood uu gacanta ku dhigay Messi waxaana uu yahay markii lixaad nin loo caleemo saaray xidiga ugu wanaagsan adduunka. Jose Mourinho dhawaan waxaa loo magacaabay inuu noqdo tababaraha cusub ee kooxda Tottenham iyadoona markii ugu horeysay uu ka hortagayo kooxda waayaha wanaagsan uu ku soo qaatay ee Man United caawa waxaase inta badan warbaahinta ay siyaabo kala duwan u falanqeynayaan kulanka caawa iyo waxyaabaha laga filan karo. inta badan warbaahinta waxay iska weydiinayaan xidigaha labada dhinac ay kala haystaan tayadooda iyo waliba bandhigyadii ugu wanaagsanaa ee ay sameeyeen. haddii aynu ka hormarno Harry Maguire iyo Harry Kane ayaa inta badan tusaale loo soo qaadanaya. weeraryahanka reer England ee Harry Kane ayaa ku jira qaab ciyaareed cajiib ah tan iyo markii Jose Mourinho uu yimid kooxda isaga oo dhammaan gool dhaliyay saddexdii kulan ee uu Mourinho hogaaminayay kooxda Subas. kabtanka England ayaa ka hor imaan doona xidiga ay isku xulka yihiin ee Harry Maguire kaas oo aan ku jirin qaab ciyaareed fiican inkastoo uu noqday daafaca ugu qaalisan adduunka isla markaana lacag fara badan kooxda ay ka shubtay. laakiin Maguire ayaa u baahan in uu soo bandhigo qaab ciyaareedkii ugu fiicnaa xirfadiisa kooxda Man United haddii uu doonayo in uu joojiyo kabtanka Tottenham Harry Kane kaasi oo u dhaaranaya in uu shabaqa soo taaban doono. daayirka wacdaraha dhigay tan iyo markii fursadaha fara badan la siiyay ayaa wajahay xidig halis ah waana xidiga garabka uga ciyaara kooxda Tottenham ee Son kaas oo dhankiisa ku jira qaab ciyaareed fiican waxaana uu u baahan yahay in Son wing min ka dhigo lama heli karo waliba in uu u istaago sidii kooxdiisa uga difaaci lahaa. Fred iyo Dele Alli ayaa sidoo kale la soo qaadanaya. xidiga qadka dhexe ee Dele Alli ayaa u muuqda mid dib u dhashay tan iyo markii Jose Mourinho uu la wareegay kooxda Spurs waxaana uu muujinayaa qaab ciyaareed fiican. haddaba iyadoo sidaasi ay tahay waxaa caawa loo fadhiyaa in gabi ahaanba xidigaha kooxda Spurs ay muujiyaan wacdaradooda ku aadan in dhiig cusub kooxda lagu shubay isla markaana The Special One uu hogaaminayo. Special One tababare Jose Mourinho waxa uu si kooban uga hadlay ciyaartan isagoo sheegay inuu doonayo inuu kulankan uga mid dhigo kulamada ugu horeeya ee taariikhda u gali doona isla markaana kooxdiisa guulaha ay ku bilaaban doonto. Ole Gunnar Solskjaer oo cadaadis uu saaran yahay ayaa ku qasbanaan doona in kooxdan uu natiijo wanaagsan ka helo waxaana goor sii horeysay uu sheegay in shaqo ka ceerinta aysan wax magaca u sameeyeen macallimiinta lagu sameeyo taasi oo muujisay heerka uu leeyahay walwalka uu ka qabo inuu waayo shaqada uu u hayo kooxda Manchester United.